استكساري لكن أود استعمال جسمي أود ما في خير مثلا بقرت ويدا وأولوس وعادي برا أقصد لي واحد كل ساعة وناش تقنع وهي كمثال سودا أحد أقول لك ساعة إبلي شيء لا أخيالي فتقدر أنا أكثر عن علمتي لأنه حلو معي كأسوني كم بودنو داكو سو قلدي كوكو سو داي دبكا على هوتي وحق الملقا maxaad kala socotaa daawaday qowlaysatada isbahaysatay oo cadaadiska ku haya fanaaniinta Soomaaliyeed dadka magaca ku dhex leh bulshada dhexdeeda iyo hablaha Soomaaliyeed oo ceebo sal iyo raatoona aan lahayn ay kaga faafiyaan baraha bulshada iyagoo isticmaalaya applicationada sida qaldan oo anshaxumada qofka bini'aadamka kaga dhigaya qaab dhismeedkiisa mid la'aan ah oo qaawan ama si kale sawirkiisa iyagoo idid u isticmaalaya hadaba waxaan warbixinteenan shaaca aan kaga qaadi doonaa saddexda shakhsi ee arinkan ku qaraabta magacyadooda codad sir ah oo aan ka duubnay iyaga kuwa oo aan ugu kurgaleynay sida aan banaanka u keenno dhibaatada ay baraha bulshada ka wadaan haba u badnaadaan hablaheena Soomaaliyeed oo aflagaado iyo fadeexa aan jirin oo rakaata ay kaga baahiyaan baraha bulshada iyo fanaaniinta oo ay ka codsadaan in saddexdooda mid ka mid ah hees loo qaado kadibna heesta markii ay soo baxdo fanaanka heesta qaaday aflagaado iyo wax aan jirin in laga abuuro oo baraha bulshada lagu faafiyo halka fanaaniinta qaarna ay heesaha ka diida in ay u qaadaan laga baahiyo waxyaabo aan jirin oo sharaf jil ku ah fanaanka xoga badan iyo cadeemo muujinaya in warbixintan ay tahay mid xaqiiqda ku salaysan oo wadato codad sir ah iyo cadeemo kale oo badan oo ku bidhaaminaya isbaarada ay social media ka wadaan shakhsiyaadkan oo aan idin tusi doono akoonada YouTube ay ku leeyihiin hadaba daawada hadii aad jeceshahay sharafta gabdhaheena Soomaaliyeed iyo sababta fanaaniinta qaar ku kalifta in mararka qaar shakhsi aan ku habooneen in hees loo qaado ay u qaadaan iyo cabsi gelin xagga YouTube-ka iyagoo isticmaalaya website fake ah oo soo deynaya strike fake ah kaasi oo ka saacidaya iyaga in muuqaalka YouTube uu xayiro hadaadan aqoon u lahayn qaabka looga hortago strike-ga waxba kama jiraanka oo ay ku dhuftaan channelka isla markaa iyaga bartilmaameedka u ah kadibna shakhsiga ay ku baadaan warbixinteenan ayaan daawadayaal ku eegi doonaa iyadoona warbixinteenan iyo warbixino kale oo aan soo wadna daawadayaal oo aan kaga hadlayno tuugadan ay inoo noqon doonaan kuwa tixanaa waa nuuce website-ka ay adeegsadaan ama ay isticmaalaan magaciisa qaabkeesa looga hortagi karaa tuugadan hadaba daawade muuqaalkan iyo muuqaaladeena xiga ayaan shaaca kaga qaadi doonaa like saar daawadayaal muuqaalkan sidoo uu gaaro dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee aan marnaba ogoleen sida adigaba aad uga dhiidhinayso arinkan foosho xun oo ay shakhsiyaadkani ay wadaan داكو سو داي هوتا كوكو داي اورد لا دل جيسي بيبي بقركا بقرتو يدا داكو سو قلدي كوكو سو داي دبكا على هوتي وحق الملقا kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelkeenan duceysana media hadii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad soo booqato subscribe saar like na saar muuqaalkan hadaba aan ku horeyna daawadayaal muuqaalkan oo aan kaga hadli doono tuugo isbahaysatay oo ka jirta baraha bulshada isla mar ahaantaana dhac iyo boob ku haya fanaaniinta Soomaaliyeed iyo hablaha Soomaaliyeed oo ay ka baahiyaan waxyaabo ceeb ah oo aan sal iyo raatoona aan lahayn aan ku bilaawno daawadayaal warbixinteenan maanta oo aan daha kaga rogayno shakhsiyaad rag ah oo tiradooda ay gaarayso ilaa iyo 3 ruux inta la og yahay oo dhibaatada dubaasan ka wada baraha bulshada taa oo la xiriirta dumarkeena Soomaaliyeed fanaaniinta iyo qaar kamid ah dadka magaca ku dhex leh bulshada dhexdeeda qowlaysatadan saddexda ah lehna hogaamiyaha oo lagu kala magacaabo Cali Cadaawi oo horjooga ah Amiir Food Cade iyo MDC Daacad oo iyana labadaba u qaabilsan sida dadka loogu rakaateeyo strike fake ah oo laga soo diro website fake ah oo linkiya been abuur ah oo magaca qofeed wata oo Gmail-ka loogu dirayo qofka rakaatada lagu hayo haba u badnaadaan heesaha fanaaniinta Soomaaliyeed ee magaca iyo maamuuska ku dhex leh bulshada dhexdeeda hadaba ila daawada horjoogaha kooxdan fashilantay ee qowlaysatada ah ee lagu magacaabo Cali Cadaawi oo alfanaan GC Boy isku dayay asiga iyo kooxdiisa in ay heesa ka rakaateeyaan kadibna ay u suurtagali weysay isagoona leh GC waan kugu soo qaldamay ee matiid shakhsi loo soo dhawaan karo سمينا فيلم جيسي بوي بقرتو يدا the one and only my brother walaalkii جيسي بوي يا علي عدا وحدا aragtid waa mataanaas la dhashay wallahi inaan been ku sheegin qad koor baan odaga Brian tahay gashnaa u dhibay faantaadi
laakiin GC Boy waxa waaye de mujaahidna waa taqaanaa iskuma dayaan brother GC Boy walaal hees baan jirta inaan taan dhinac ka saaray laakiin awood buu kusoo ceshtay waa legend waa my brother garabkaada taaganahay team shata gudoomiyaheena weyn gudoomiye duceysana brother anigu cali cadaa waxaan idin leeyahay saaxiib Canada nalkiina brother baxaya wallahi inaan nabi idin sheekadu kuma koobno daawada inta ila dhageyso horjoogaha kooxdan oo isagu qudhiisa qiyaamo u maleegaya mid kamid ah tuugada baraha bulshada ay iskala qaraataan kaasi oo lagu magacaabay MDC Daacad isagoo dhahaya heesta aniga la ii qaadaya sida aan kugu daro lacag soo dir isagoo oo waliba hadafkiisu yahay in marka hore qarsaad ay kala qaataan taasi oo sida muuqata daawade laga dhayalsan karo tuuganimada baaxadda leh hadaba ila dhageyso daawade codkan oo aan ka dumnay iyaga qudhooda qaabka ay isku dhacayaan just was that matter GC body adifa no fir wax min qana wax min gelso en iyada am ku soo dir maaragtay radison aqus diray ba wax kale saacaw meesh taqaan oo ahayd kamitaara soo daa xaska wax ugu dhigsaa MBC la oo khiyaali inta soo dirano intaan ku guda jirnay daawadayaal diyaarinta warbixinteenan iyo warbixino kale oo aan idiin soo wadno waxaan helnay in raggaani ay sidoo kale waxyaabo hoos u dhigaya sharafta dumarkeena Soomaaliyeed ay kula kacaan taasi oo la xiriirtay in ay ku sameeyaan sawirada dumarkeena Soomaaliyeed ayna wajiga qofka dumarka ah ay saaraan sawir u muuqda qof cawradiisu banaanka taal ama qaawan oo qaab kale loo ekeysiyay taasina ay muhiimadooda koowaad iyagu ay tahay sidii ay ku rakaateen lahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed waxaana ay soo dhigaan badana aalada WhatsApp qaasatan qaybta statuska geesta kale shakhsiyaadkan lagu kala magacaabo Cali Cadaawi Amiir Food Cadde iyo MDC Daacad ayaa fanaaniinta ku rakaateeya hees iiqaad oo uu badana horbooda horjoogaha qowleysatadan Cali Cadaawi kaasi oo xiriir shirqooleysan la sameeya fanaaniinta marka uu isagu danta ka leeyahay isagoo oo waliba ballanqaad lacageed u sameeya fanaanka uu doonayo in uu hees u qaado kadibna marka uu dantiisa gaaro waxa uu si fool xun ula dhaqmaa fanaanka heesta u qaaday isagoo ku rakaateeya ceebo waxba kama jiraan ah inuu ku tilmaamo fanaanka halka sidoo kale fanaaniinta diida in ay hees u qaadaan isaga uu ku rakaateeyo waxyaabo fadeexa ah oo been abuura waa uu social media kaga faafiyo waxaana uu ugu awood sheegtaa website fake ah oo janaalku u diraya copyright iyo strike fake ah oo ay ka caawiyaan sidaan soo ogaanay daawadayaal qowleysatada lagu kala magacaabo MDC Daacad mid la baxay iyo mid kale oo lagu magacaabo Amiir Food Cadde ku mahadsan daawashada muuqaalkan fadlan daawade sidaan u ciribtirno kooxaha nuucan oo kala u abaabulin qowleysatada muuqaalka like share oo la wadaag saaxiibadaada sida bulsho badan uu gaaro muuqaalkan oo ah qaybteennii koowaad oo aan kaga hadli doono qowleysatadan dhacaya boobka ku haya fanaaniinta Soomaaliyeed isla mar ahaantaana bahdilka iyo waxyaabaha aan jirin ka faafinaya hableena Soomaaliyeed ee sharafta leh